maxay ku dhacday inuu ka sarayn bato safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gobolada ku barayo arrinta farmaajo guri loo dhisaya baraha bulshada iyo goob walba shacabka isugu yimaadaan lama hadal hayo safarka xasan sheekh uu ku tagay gobollo ka tirsan Soomaaliya maamulada galmudug iyo koonfur galbeed maadaama uunan suuqa u gelin sidii loogu talagalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu soo gabagabeeyay jadwalkana uu ka joojiyay socdaalkii uu lahaa ku tag magaalooyin kamid ah maamul goboleedyada kale maadaama laba maamul goboleed tagay qorshe wuxuu ahaa inta laga gaarayo calaamasaarka inuu cagta mariyo shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka waxyaabaha uu joojiyeen waxaa kamid ah suuqiyoo laga qasbay baraha bulshada waxaa lagu hadalhayaa lacagta farmaajo loo ururinayo goobaha bulshadu isugu yimaadaan ee kalena sida fadhi ku dariyada goobaha maqaayadaha waxaa laga hadalhayaa arrinta guri baa loo dhisayaa maxamed cabdilaahi farmaajo meeshii laga hadalhay lahaa safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee nabadda ee uu doonayay in uu dadka Soomaaliyeed u tuso dadkuna ay la socdaan meel kasta uu tagayo waa looga adkaaday marka su'aasha meesha taalla ayaa ah maxaa dhacay oo keenay in bulshada laga qabsado madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safaradiisu ay qiimo yeelan waayaan oo weliba ay yihiin safarro nabad ah oo ku doonayo inuu talooyin kaga dhagaysto shacabka iyo siyaasiyiinta maamul goboleedyada dalka balantu waxay ahayd inuu tago Jowhar balantu waxay ahayd inuu tago Kismaayo balantu waxay ahayd inuu tago Garowe markuu arkay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cid hadal haysa inaysan jirin baraha bulshada oo dhan laga aamusan yahay shacabka Soomaaliyeed aynan ka warhayn oo qof walba maanta uu ku mashquulsan yahay guriga maxamed farmaajo loo dhisayo waxay noqotay markii uu iska soo gabagabeeyo safarkii uu ku kala tegi lahaa maamul goboleedyada kale marka maxay ku timid way kooban tahay hogaamiyuhu waxa uu leeyahay laba dabeecadood hogaamiye aanan aqoonin isku xirka ama sida loo jiheeyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed oo wanaag kasta u sameeyo ay noqonayso hal bacad ulis iyo hogaamiye aan waxba qaban laakiin yaqaana sida loo jiheeyo maskaxda shacabka maxamed farmaajo wuxuu yaqaanaa sida loo jiheeyo maskaxda shacabka waxaa la shaqeeya dad u xarbisan sida bulshada Soomaaliyeed loo soo jeedin lahaa waa dad takhasus u leh sida bulshada loo bedeli karo dadka qabanba laakiin ma haysto madaxweyne xasan sheekh maxamuud rag noocaas ah rag saamayn leh oo jihayn kara bulshada Soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud rag yaqaana sida loo jiheeyo oo loo soo jeediyo indhaha shacabka loogula jeediyo safarkiisa xasan sheekh maxamuud ma haysto ragga uu xushay ee dhanka saxaafadda waa rag aan la loolami karin kooxda farmaajo waa rag aan haba yaraatee meel la dhigi karin hadal kooxda farmaajo oo weliba xitaa siyaasadda looga adkaa xasan sheekh wuxuu keensaday qolooyinka warbaahinta u qaabilsanna ay yihiin qolo aanan haba yaraatee bulshada soo jiidan karin waana sababta safarkiisii nabadda ee qiimaha lahaa oo u noqday mid ay bulshadu aynan hadal ahayn yaa ka badiyey kooxdii farmaajo oo bulshada si fudud u soo jiidiyey marka mid ogaada waxaa jira waxa la yidhahdo soo jiidashada shacabka hogaamiyaha isagoona waxba qaban haddii uu haysto rag jiheeya oo meediyaha ku jira oo saamayn leh hogaamiyahaasi oo waxba qaban ayaa bulshadu mar walbaba ay isaga hadalhaynayaan laakiin hogaamiye wax qabad badan laakiin aanan haysan rag aqoon u leh sida bulshada loo soo jeediyo ugu dambayn waxay ku biyashubataa in war walba iyagu ay hayaan uu noqdo mid ka labaad